wagaag aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay sheekh maxamed muslim sida sharafta leh oo inoogu faahfaahiyey bisha barakeysan ee ramadaan ee fooda inoogu soo hayso. waxaa kaloo halkan inaga sheegaynaa ama inaga soo jeedinaynaa cashirkii sheekha oo stuudiyaha uu ka waday saasa t v lilfadli ramadaan likaraamati ramadaan licizati bishan barakeysan ee ramadaan. waalidiinta ku taxnaa cashirka oo gaar ahaan cashirada oo familiga ah waxaan halkan ugu soo jeedinaynaa inuu sheekhi joojiyey cashirada wuxuuna sheekha ka hadli doonaa hadduu allaha awoodi leh raalli ka noqdo bisha barakeysan ee ramadaan maadaama bil karaameysan ay tahay oo fadli badan ay tahay. cashiradii waxaa la bilaabi doonaa hadduu allaha awoodi leh raalli ka noqdo bisha barakeysan ee ramadaan markay dhammaato after ramadaan ayuu sheekha bilaabi doonaa, laakiin wuxuu ka hadli doonaa inta bisha ramadaan lagu jiro fadliga bisha ramadaan ay leedahay ayuu cashiro gaagaaban oo aada u gaaban oo inuu halkan ka soo jeedin doonaa. sidaas ayaa inii sheegaya iyo weliba axkaamta kale iyo axkaamta kale iyo aadaabta bisha ramadaan ay leedahay iyo aadaabta iyo axkaamka iyo waxyaalaha fadliga iyo waxyaalaha jibinaya bisha ramadaan iyo waxyaalaha qofka loogaga baahan yahay waxaas oo dhan ayuu halkan ka sheegi doonaa. sharaf ayuu inaga mudan yahay sheekho aada iyo aad ay umahadsantahay sida fadliga iyo karaamada leh aad inoo soo ajiibtay aada muslimiinta ku noqon magaalada Rochester ee gobolka Minnesota aad markasta halkan aad ugu soo jeediso. su-aalaheena ayaanu iminka gali doonaa. sheekh maxamed muslim su-aalo badan ayaa nala soo weydiiyey oo ku saabsan bisha ramadaan gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Rochester ee gobolka Minnesota. su-aasha koowaad haddaan ku weydiino oo bisha barakeysan ee ramadaan waxa waaye yay ku waajibtaa bisha barakeysan ee ramadaan? بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. bisha ramadaan waxay ku waajibtaa qof muslima oo qaangaadha oo caaqil ah yani caqli leh oo caafimaad qaba oon musaafir ahayn ayay ku waajibtaa. waagaag su-aasha kale oo ku xigto waxa waaye hadduu allaha awoodi leh raalli ka noqdo waxaa jiro dad badan oo fahamsaneen micnaha iyo barakada iyo bisha ramadaan ay leedahay. qofki wuxuu ku leeyahay gaasa ay haayo xali ma suxuuranin, suxuurtii xali iga tagtay, waagiyaa igu beriyay anuuna suxuuranin. taasi qiil ma noqonaysaa xagga diinta marka la fiiriyo? بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. su-aashii hore haddaan kabo qofka hadduusan muslim ahayn laguma lahaa yani lama dhahayo soon lagamana aqbalayo waa inuu diinta soo galo. kow qofka waa inuu yahay qof oo caaqila. qofka hadduu xanuunsan yahay oo ama waalan yahay ama saa yahay ama uu maarata qof weynaado isku darmada yahay iyadana soon ama ilmo yan oo wax kala garanaynin iyadana soonka laguma laha. qofka hadduu yahay qof musaafira uu iska afuri karaa inuu soomana u furan tahay mar kale waan sii faahfaahin doonaa. hadduu qofku yahay qof xanuunsan ayadana waan ka hadli doonaa, iyadana soonku waajib ku noqon maayo. hadday gabadhu caado qabto ama ay markaa umasho dhiigi dhalmada ay leedahay iyadana soonka ma soomi karto. marka inta haddaan ka gudubno oon su-aashaadi usoo noqdo hal mar si fiican iigu celi. su-aasha aan kugu celinayo bulshadana soo weydiiyeen waxaa waaye bishii barakeysan ayadaa dhalatay ama soonkiyaa lagu jiraa. sometimes dadka waxa waaye gaas ayay qabaan oo waxay leeyihiin inkastoo bishaan bil caafimaad ay tahay ilaahay qur-aanka inoogu sheegay oo bil barakeysan ay tahay qofkii wuxuu leeyahay suxuurtii ayaan ka tagay oo xali ma suxuuranin liajli xali aan u suxuurin haddaa xali suxuuranin gaas aygu dhacay marka ma soomi karin. taasi qiil ma tahay? ayib qofka gaaska qaba ama xanuunka la qaba dadka xanuunsan waxaa loo qeybayaa xanuunkooda saddex. kow midda koobaad xanuun iska yar hadduu qofku gaaskiisu yahay gaas yar oo qofku isaga ilaahba is og ama dakhtarku uu caddeeyey gaaskiisu inuu yahay gaas yar oo dawada hadduu habeenkii cabo caadi iska tahay
qofkaasi waxaa waajibka inuu soomo marka cala kulli haddii qofku xanuunkiisu yahay xanuun yar hargab yar gaas iska yar waxyaabaha noocaas oo kale waajib wey qofku inuu soomo even hadday dhacdo markuu soomo inuu hayn kari waayo markaasuu afurayaa dib u ka qadaynaya hadduu hayn kari waayo oo dhibaato weyn inay soo gaadho laakiin xanuunka laga hadlaayo ee qofka uu loo baneeyay inuu afuro waa xanuunka dhib kale waa xanuunka qofka ama cudurka ku ziyaadayo oo ku badanayo ama uu halis ku gelayo ama inuu caafimaado ay dib u dhacayso laakiin hadduu yahay wax iska yar qofka culimada isku waafaqsan yihiin qofku inuu soomayo haddii ay dhacdo markuu soomo inuu dhibaato culus dareemo soomka hayn waayo laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha markaas wuu afuri karaa kadibna gadaal ka qadaynaya qofkan muslimka inuu ilahay ka cabsada muhima asaga ilaahay ays og wuxuu sheegay inay dhab ka tahay inaysan ka ahayn ilahay marka lama khiyaani karo taas marka waa mid hadduu qofku xanuun yar hayo oo aan dhib soomka ku ahayn waajib bay ku tahay inuu soomo xanuunka labaad waxa weeye qof xanuunsan oo xanuun dhibaya oo hayo la rajaynayana inuu berri ka maalin uu ka bogsado kaas ilaahay baa ruqsad siiyey oo allah subxana wa taala qur-aanka wuxuu ku yidhi haddaad xanuunsan tihiin ama aad safar tihiin maalin iska afura mar kalaad qadaynaysaan marka kaas waa loo ogolyahay inuu iska afuro oo uu qadeeyo laakiin waa qofka la rajeynaya inuu berito ka bogsan doono xanuunka waxaa jira qeybta saddexaad kaas marka qadoon baa lagu yeelanaya hadhow wuu qadaynaya waxaa jira xanuunka saddexaad oo ah qof xanuunka la noolaanayo sida qofka qaba sokorta dadka keliyaha laga dhaqo iyo xanuunada lamidka xanuun waxaa weye qofkii da- buu noqday waa weynaaday lama rajeynayo inuu dib usoo kabto dadka noocaasa dhammaantood ee xanuunka weligood aan soomi karin oo takhtarku caddeeyay inaysan soomi karin dadkaas way afurayaan habeen walba qof ay quudinayaan quudinta marka waxaa loo qaybiyaa yani waxaa la samayn karaa bisha markay dhamaato 30 hadday ku dhamaato 30 qof inaad quudisid hal mar waxaa samayn kartaa habeen walba inaad qof quudiso waxaa samayn kartaa 5 qof inaad habeenkii quudiso bisha marka intay tiradeedu tahay ma laga rabaa 2 sina waad samayn kartaa inaad cunto u kariso inaad makhaayad saarto qofka iyo inaad raashin bixiso raashinka 1 kiilo badh habeen walba inaad bixisid haddaad waxoogaa yar oo maraqiisi waxaa ugu dartana way fiican tahay haddaad waxaasoo dhan intaad marka hal mar ku dhufato aada jumlayso ood reer siisana waad heli kartaa anas ibnu malik baa markuu weynaaday radi allahu canhu saxaabi waaye khaadimkii nabi markuu weynaaday 2 sano uu quudin jiray markuu soomi kari waayo marka dadka xanuunsan saddex soo qaybsan xanuun aan dhib lahayn oo qofku inuu soomi waajib ku tahay xanuun la rajaynayo inuu ka bogsado oo hadhow qada lagu leeyahay iyo xanuun aan la rajaynaynin oo kaas cunto iska bixinaya okay waa aad iyo aad ay u mahadsan tahay anoo sii dabagalayo eriga qofka afurinayo misalan oo kale qof baa da-a xanuunsan ama madaxa laga haayo ama ose waxba garanaynin oo da-a oo xanuunsan waxaa tiri in maalin walba qof oo afuriyo mise hal qof kali ayuu maalin kasta afurin karaa mise waa maalintii waa inuu maalintii qof kala duwan oo afuriyo maanta jaamac oo afuriyey berina sacdiim oo afurinaa beri dambana xuseen moo afurinaa beri dambana saciida moo afurinaa mise halka qof oo sacdiye besa maalin walba oo qofkaan oo afurinaa waxaynu sheegnay 2 arrimood oo furantaa inuu quudiyo iyo inuu raashin soo gado oo dad masaakiina siiyo raashinka marka dad badan buu qaybin karaa mesela hal qoys oo baahan oo siin karaa every day macnaha wuxuu samayn karaa 29 beri inuu 29 beri ku dhufto kiiliya badh intay noqoto soo gado raashina uu qoys siiyo waa ka baxay wuxuu kaloo ama 30 beri ee la soomay wuxuu kaloo samayn karaa intuu soonku socdo laftiisa inuu cunto caadi oo bisil oo siiyo makhaayad buu qof saari karaa hal qof oo dhigi karaa habeen walba ka afur wuxuu kaloo samayn karaa 10 qof buu afurin karaa habeenkii haddana 10 kaloo afurin karaa haddana 10 kaloo afurin karaa wuxuu kaloo isku 5 buu afurin labo hal qof oo halkii qof uu samayn karaa family dhow ka dhigi karaa dad kala duwan uu ka dhigi karaa su-aashaas waxaa sheekha ugu celcelinayaa dadka saasa TV ku xiran iyo bulshada Soomaaliyeed
وسؤاشاس waxaan kugu celcelinaa waa su'aashii la soo weydiiyay because dadka badana waa dad xanuunsan oo magaalada joogo marka waxay rabaan in loo faahfaahiyo ma qof oo afurina ma laba qofood oo afurina ma saddex qofood oo afurina ma hal qofood oo afurina taas waa su'aashaas aan ugu celcelinaa si bulshada inuu fahanto maadaama aan bulshada u shaqeyno waa hagaag su'aashaas intaas ay inoogu dhantahay umaleynaa waad fahanteen and su'aashaas saddexaad ama afraad hadday tahay sheekha aan weydiinayo waa su'aal muhiim ah فضيلة الشيخ جزاه الله خير الجزاء سؤاشان وسؤال آد بلشدة سومالية دي وقصون نقطي أو قويس أهان أيضا بالبركيسان أو رمضاني لو جرو أو لسومية هاي أيا ضد وحا أركيسا أو فيو أو عافمات قبو أو لحدود الحد إلهي سيي أو كرامة يعزيق بشان إليدها قدسان أو على سومينين marka weydiisana wuxuu ku leeyahay maxaa la dhahay adiga ilaahay ma iga soo warantay marka dadkaas oo kale oo jibriil yiri qofka bisha ramadaan ku soo dhalato oo laga aqbali waayo naarta allah ku fogeeyo dadkaas sidaas oo kale maadaama aan diinta aad ka shaqeyso xogaal u tahay maxaa dadkaas u sheegi lahayd oo kula talin lahayd waa dad fiyo oo maankooda dhan yahay oo lixdooda laxad joogo islaantii way sooman tahay ilmihii way sooman yihiin odigii ma soono what's gonna do بسم الله الرحمن الرحيم كل هوري وحواي صومكو وشنطة أركان إسلام كميدا وتيرش ووين إسلام كشنطة متكميدا سوقف شنطة متكميدا هدو وصص سماينين وقف تيرش إسلام كميدا كتير مسألة حليسة وحيابها أو عقابك إلى المرتوي أو حليسة أركان إسلام كمركز صوم كميدا مسلمين تنا وحيسكوا فقسيين الشنطة ركن الإسلام كأنه واجب ومعرفة الشهادة ده صلاة ده زكاة ده صوم بشهر رمضان حج مركز خطرت إلى هذا وحوي هذا قفكو أصدقوا عذر لحين وإسكاء فوره عقابك إلهي إنه ناركو قال أي قفك سهل سوق جرا هدوس إلهنا حرسه سبحانه وتعالى وحواجب كمركز المسلمين تا إني إلى ليان أركان تاس معايا قفك هدو نار وما أتكيسن كرو قفك هدو نار وما أتكيسن كرو واجب أن كنت هاي إن قفكاس لأمره ولا هذا الصون dadka muslimiinta ay ula joogaan u naseexayaan waajib ku tahay asagana waxaan dhihi lahaa barito maaragtay uma adkeysan kartid ciqaabka ilaahay cadaabka ilaahay marka maanta ay fursad haysataa ilaahay u toobadkeen u laabo ilaahay dambi dhaaf weydiiso soomkana u noqo maxaa yeelay waxaad dumisay haddaada soomin rukn markaas qofku soomka hadduu uga tagayo إنه واجب كوين إنه آمن سن يهاي وقالوا بيا هدو آمن سن يهاي بشهر رمضان واجب إجماعها قف كاس مسلم من قناع فقالوا بيا قف كاس دينتك بحر سبحان الله ها وحضور أنا كمان تاجنا وهدو إن كريستيان يعني واجب كتر هدو إلهي واجب يقطع إلا لكن شيطان بقى كحنفت كحسينا كبائر الذنوب قف كتير وايد بيده وين النار تلقوا قالوا متكمل أيو كتير قف كاس waxaa muhiim ah inuu isku laabto oo ilaahay u tuugo subxaanahu wa ta'aala baabka ilaahay waa furan yahay ilaahayna qur-aanka maarta ku celceliyay marka qofku inuu toobad keeno ilaahay u laabto subxaanahu wa ta'aala ayaa u furan qul yaa cibaadiya alladhiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmatillah ina allaha yaqfiru dunuuba jamiican innahu al-ghafuur raxiim marka addoommadii dembiyada badan galay buu ilaahay la hadlay wuxuu ku yidhi kuwa naftooda ku xadgudbayo لا تقنطوا من رحمة الله نحرس الله كقوسنا إن الله يغفر الذنوب جميعا إلى وعدك ما شاء الله إلى سبحانه وتعالى ذنوبته رب العفو جميعا ما شاء الله دم بكستوقفك وقالوا أدوك التوبة كانوا الباب كله وفره ما شاء الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الله أكبر إلى وعود سبحانه وتعالى إلى أصول الله دمانتين محايا دمانتين بالله كواتك سبحانه وتعالى ما شاء الله هذا مؤمنين تهين مكة والليبان يسمى الله سبحانه وتعالى هل قاعد نقف كان توبت كيرين ليبان تسوق قضية هدوا على يا مركا مركز نفطوا على يعني مركي هدوا على عل بس وحبة ترين خطر وين مثلا قف مسلم كفرصة وكتوبت كانوا إلهي يقول لابتو بشان ونار كجبت باله
maaragtay marka bishan qofku inuu ka qado waxa way runtii waa qof oo maaragtay xirmaan ku dhacay qof aan maaragtay aan haysanin oo ka qaday way khayrka dhan jazakallahu khair barakallahu fiikum allah idin barakeeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ajri xasanaad idin ka siiyo waa mahadsantihiin shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan oo u gaadho iyo dad kale muslimiinta dhamaan waxaan ilaahay u warjinayna subhanahu wa ta'ala anaga naga aqbalo soonka iyo cibaadada naga aqbalo bishaan barakadeedii khayrkeedu ilaahay na siiyo nabad iyo nagu gaarsiiyo inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala naga ku ka faa'iideysta oo Allah ka aqbalo inuu naga dhigo inuu waalidiinteeda ilaahay u naxariisto oo dambi dhaafo bishaan barakadeedu ilaahay na siiyo subhanahu wa ta'ala idinkana waa mahadsantihiin saasa iyo bahdeeda waa aad iyo aad baad mahadsantihiin jazakumullahu khayran والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. برنامج كان برنامج لما إذا أنت كوكل مدونه وحايني تجي دونا سلاسيو نبتقليو هموغانينا ساسا فيسبوك بيج يو ساسا يوتيوب channel وحقاك